Isbeddelka shakhsiga ah wuxuu had iyo jeer ka bilaabmaa gudahaaga. Waa muhiim inaad ogaato isbeddelka dhabta ah ma imanayo haddii aad sugayso. Waa in aad run ahaantii adigu bilowdaa. Horumarka noloshaadu wuxuu bilaabmaa marka aad garato in awoodda run ahaantii isbeddelku ku jiro gudahaaga. Haddaba, dunida beddel adiga oo naftaada beddelaya. Wax walba waxay ka bilaabmaan adiga. Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada Go For Podcast. Maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc aad u muhiim ah. Isbeddelka shakhsiga ah wuxuu run ahaantii had iyo jeer ka yimaadaa ka bilaabmaa gudahaaga. Maxay tahay sababta isbeddelku muhiim u yahay? Sidee loo bilaabaa? Sidee loo bilaabi karaa isbeddelka dhabta ah ee noloshaada? Haddaba nala joog ilaa iyo dhammaadka mowduuca si aad u ogaato fursadaha run ahaantii awoodda leh ee noloshaada beddeli kara. Haddaba, qodobka ugu horeeya ee mowduuciina maanta, isbeddelka wuxuu run ahaantii ka yimaadaa gudahaaga ee maaha mudane iyo marow dibadda kama yimaado. Haddaba, haddaan ku bilowno aragtida Islaamka. Diinta Islaamku waxay run ahaantii ina faraysaa ama noo sheegaysaa in isbeddelka dhabta ah uu ka bilaabmo gudahaaga qofnimadaada. Gaar ahaan qalbigaaga, fikirkaaga. Quraanka Kariimku Allah Subxaanahu wa Tacaala wuxuu ku yidhi ma beddelo xaalad qoom ilaa ay ka beddelaan waxa ku jira naftooda. Haddaba haddaan intaas la fahanay, qofka Muslimka run ahaantii ee doonaya inuu horumar ka sameeyo noloshiisa waa inuu run ahaantii marka hore la yimaadaa niyad daahir ah oo wanaagsan iyo dadaal joogto ah. Siduu Allah run ahaantii tallaabo hore u sareyso uu siiyo. Maadaama run ahaantii isbeddel kaste uu ka bilaabmo qalbiga iyo maskaxdaba. Haddaba intaa isla fahanay, haddaba maxay ka dhaheen ama maxay ka yidhaahdeen aragtida reer galbeedku maxay ka qoreen isbeddelka? Run ahaantii iyagoo isticmaalaya psychology-ga iyo philosophy-ga, reer galbeedku waxay yidhaahdeen cilmi baaris waxa loo yaqaano cilmi nafsiga iyo falsafadda reer galbeedku waxay sheegaan in isbeddelku uu yahay hab ka bilaabma gudaha qofka. Wuxuuna ku xiran yahay ay sheegaan fahanka nafta iyo rabitaanka isbeddelka. Falsafadii hore ee Socrates la oran jiray wuxuu yidhi naftaada garo, taasoo micnaheedu tahay mudane in qof kasta run ahaantii qofka uu isfahmo uu yahay run ahaantii tallaabada ugu horeysa ama tallaabada koowaad ee horumarkaba. Haddaba fikradaha iyo waxa loo yaqaano dareenka run ahaantii waxa qofku dareemayo ayaa run ahaan si weyn u saameeya ficilada. Cilmi baariso casri ah oo run ahaantii oo la sameeyey ayaa muujiyey in isbeddelka dhabta ah uu bilaabmo marka uu qofku uu fahmo caqabadaha maskaxdiisa run ahaantii oo la yimaado go'aan adag oo xooggan oo run ahaantii wax ka beddelaya waxa loo yaqaano noloshiisa. Haddaba qodobka labaad waxaan ka hadlaynaa 3 tallaabo oo muhiim ah oo run ahaantii looga baahan yahay oo run ahaantii loo mari karo isbeddelka qoto dheer. 1. Islaamku qaabku uga hadlay. Aragtida Islaamka waa maxay? 1. Naftaada ogow. Fahanka waxa loo yaqaano fahanka naftaada waa 2. Iyo fikirka wanaagsan si loo helo. Saan iskula fahanno isbeddelka dhabta ah run ahaantii wuxuu ka bilaabmaa fikirka wanaagsan iyo waxaad rumaysan tahay. Midda labaad ku darso ducadu waa mid ka mid ah dariiqooyinka run ahaantii ugu waaweyn ama awoodda badan ee qofka Muslimka uu adeegsado run ahaantii inuu naftiisa wax ka beddelo. Ducadu waxay ka mid tahay waxyaabaha awoodda leh ee nafta lagu beddelo. Ficil yar samee oo joogto ah.
amalkaaga wanaaji, iimaankaaga sare u qaad. Islaamku wuxuu xoojinayaa muhiimadda ay leeyihiin ficilka yaryar ee joogtada ah, sida run ahaan salaada, sadaqada iyo in la wanaajiyo akhlaaqda. Rasuulku sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ficilka ugu wanaagsan waa midka la sameeyo sida joogtada ah, xitaa hadduu run ahaantii uu yaryahayba. Haddaba dulqaadka iyo adkaysigu waa sidee? Samarka iyo dadaalka joogtada ah. Qur'aanka kariimku Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi ha quusan, waxaad heli doontaa guul iyo barako haddii aad adkaysataan. Haddaba waxaan ka fahmaynaa isbeddelka dhabta wuxuu u baahan yahay dulqaad, isku xidhnaan, kalsooni iyo run ahaantii ku xidhnaanta Allah. Haddaba haddaan intaan la fahanay waa maxay aragtida reer galbeedku maxay ka dhaheen, iyagoo run ahaantii isdul taagaya psychology-ga iyo waxa loo yaqaan decision marketing qaabka loo qaato. Sida waxay sheegeen naftaada ogow waxa loo yaqaano. Haddaba cilmi nafsiga run ahaantii reer galbeedka ay sheegaan waxay tilmaamaan in fahanka naftu uu yahay tallaabada ugu horeysa ee isbeddelka. Qofku waxay sheegaan qofku waa inuu ogaadaa waxa loo yaqaano daciifnimadiisa, xooggiisa wuxuu ku fiican yahay iyo waxyaabaha ka hor istaagaya inuu horumar sameeyo. Hadda waxay sheegaan ficilka yaryar ee joogtada ah sida loo yaqaano behavior change. Isbeddelka waa ficil, waxay ku sheegaan isbeddelku waa ficilo yaryar oo run ahaantii isbeddel joogto ah keenaya. Fikradaha waxaa jira ninkii uu la oran jiray Kaizen oo ahaa maadaama uu Jabbaan ah wuxuu yidhi isticmaalka ayaa run ahaantii sheega in horumar kastaba uu ka bilaabmo tallaabo yaryar oo la isku geeyey. Haddaba dulqaadku iyo adkaysigu waa muhiim labadaba, meel kastiba waa muhiim ku yahay. Wuxuu muujinaya cilmi-baarisyo badan ayaa muujiyay in xoogga maskaxda uu muhiim u yahay isbeddelka. Qofka hadduu madaxa ka dhisan yahay beddeli karaya. Run ahaantii guushu waxay timaadaa marka waa muhiim, qodobka waa muhiim. Guushu waxay timaadaa marka uu qofku run ahaantii uu la qabsado caqabadaha, run ahaantii uuna ka quusan yoolalkiisa inuu gaaro oo mar ku celiyo siduu mar labaad u hagaajin lahaa. Haddaba waxaan ka gaarnay qodobkii saddexaad. Waa xikmad dhiirrigelin ah oo run ahaantii tusaale oo dadka ku guuleystay isbeddelka. Run ahaantii aragtida Islaamka horta maxay ka dhaheen? Waxaa jiray nin caan ah oo run ahaantii ku suntanaa oo noqday mid ka mid ah ku dayasho mudan. Wuxuu run ahaantii muujiyey in iimaankiisa uu xoojiyey, dulqaad badan buu sameeyey, uu adkaystay. Run ahaantii wuxuu caawin karaa inuu noloshiisa wax badan ka beddelay. Haddaba inkastoo si kasta ha ahaatee wuxuu ku guuleystay ninkani inuu isbeddel uu ka bilaabo gudihiisa, qofnimadiisa ka hor inta uu dadka bulshada la tuko. Wax walba wuxuu ka bilaabay gudihiisu ka bilaabay, kadibna dadku ayuu la yimiday. Waxay sheegaan aragtida reer galbeedka waxay soo qaataan Nelson Mandela oo ahaa tusaale caalami ah oo muujiyey isbeddelka maskaxda. Wuxuuna awooday uu sheegay in uu jebiyey nidaamka wax loo yaqaano midowga loo yaqaano kala dhaho nidaamka ka dhacay South Africa ee loo yaqaano nidaamka kala sooca ama nidaamka takoorka lagu hayay, isagoo run ahaantii isticmaalay qaab muhiim oo loo yaqaano adkaysiga, aragti fogan iyo dulqaad. Haddaba waxaan soo gaarnay gabagabadii mawduuciina maanta ahaa. Haddaba waa inaan isla fahanaa isbeddelka dhabta ah wuxuu ka bilaabmaa maskaxdaada, qalbigaaga, ficiladaada maalinlaha ha quusan ee wax waliba ku day isbeddel inaad samaysid. Haddaba waxaan ku leeyahay noqo qof run ahaantii isbeddelka sameeya. Waxaan ku leeyahay waad ku mahadsantihiin in aad run ahaantii nala socotaan, si fiican u dhegeysataan.
waxaan leeyahay sidaa iyo mowduuc iyo podcast wixii oo aad u xiiso leh ayaan leeyahay. Saa iyo kulanti dambe oo wanaagsan.